qodobada ka soo baxay shirkii muddada u socday maamulka degmada Jariiban iyo kan deegaanka Garaacad waxaa ka mid ah kow isku xirka mideynta iyo wada shaqaynta dawladda hoose ee degmada Jariiban iyo kan deegaanka Garaacad oo ku dhisan ku soo dhamaaday si guul ah degmada waxa ka baxa iyo waxa soo gala maamulka dawladdu nidaam buu leeyahay dastuur buu leeyahay waxa weeyaan soo mara 3 jaran oo midka u dambeysay degmada uu yahay xildhibaanada dawladda Puntland baa sharciga u dejiya golaha wasiirada madaxweynaha degmadu markaa yimaada degmadu ma aha meel waxay doontaa iyadu iska sameyn kartaa degmada guud ahaan waxay leedahay maamul hoos gobolka laga xukumaa marka in maamulku isku xirmo oo qaab dawli ah isku xirmo una shaqeyno ayaa noo soo ilaaday waana ilaahay xamdigiisa waayo degmadu awal waxay isku xirtay qaab beeleed dad meel degan bay ahayd laakiin soddonkii soo burburay nidaamka dawliga ama canshuuruhu kama hirgelin degmada inaan hirgelino waa jecelahay qodobka labaad ka shaqaynta amniga iyo nabadgelyada degmada Jariiban iyo Tawfiiq marka Jariiban la yiraahdo degmada Jariiban Tawfiiq wada ogtihiin maantay madaxdeedii waa nala fadhiyaan waa qayb waa degmo madax bannaan oo degmo maamulka Puntland u magacaabay also waa degmo ka tirsan degmada Jariiban waxaa naga dhaxeeya wada shaqayn dhow oo xagga wax wada cunka iyo shaqada iyo howlgalka iyo talada hadda maamulka Tawfiiq waxay halkan u yimaadeen talo ay rabaan labada degmo inay ka wada tashadaan go'aan ka gaaraan kadib la wadaagaan gobolka iyo dawladda Puntland okay khilaaf bixinta dhulka ilaalinta duurjoogta dhulka waxaan rabnaa in la helo guddiga khilaafaadka dhulka liya ma jiro adduunka dawladda iyo shacabka dad baa u dhaxeeya dawladda waxa soo dhisay odayaal iyo nabadoono iyo waxgaradka deegaanka dadkii talada bay ku leeyihiin waxa la qabanayo guddiga khilaafaadka oo maamulku qayb ka yahay oo hoostaga waaxda hawlaha guud buu hoostaga kadibna wuxuu amarka siiyaa oo u geeyaa wixii ku adkaada maxkamaddu wax kale ma qabato guddiga khilaafaadku waxay soo gudbeen maahe waxaa laydinka rabaa guddiga khilaafaadka dad aad u toorateen oo 9 xubnood ah oo aad u doorateen dadkaasi in ay yihiin dad bulshada matali kara dadka u cadaalad fali kara dadka wax ka dhaadhicin kara oo aad ka soo xulateen baa laydinka rabaa Garaacad guddiga khilaafaad la'aan galkacyo waa leedahay Garowe waa leedahay adduunka ma jiro meel aan guddi khilaafaad lahayn guddiga khilaafaadku waxaa laydinka rabaa 9 xubnood oo ka mida inaad soo xulataan waxaanaad ogaataan Garaacad maanta ma degana dhulkeedana ma laha reerka Cabdi Ciise oo degan oo kaliya waxaa idin wehelin doona dad kale oo Soomaaliyeed oo maamulka laga yaabo in idinku kaabaan laakiin guddiga waxa la rabaa 9ka in reer Cabdi Ciise aad soo xushaan kadibna wax allaala wixii khilaaf oo yimaada inta maamulku ay soo gaarin waxay u imaanayaan guddiga khilaafka iyo deegaanka Garaacad maamulka jira markay xalka waayaan waxay u gudbinayaan waaxdii iyo maxkamaddii nidaamka ay marayaan maamulka ayaa marba guddiga khilaafka qayb ka kicinta cashuuraha dawliga ah ee la isku raacay si nidaamka u shaqeeyo waajibaadkiisana u gudtay in bulshadu noqoto cashuur bixiyaal bulshada waxa loogu shaqeeyaa hadda aniga taliyaha booliska gudoomiye ku-xigeenka maxaan ku raahdaa xogayaha waxaan idhaahnaa solar system baan ku shaqeynaa anigu bishii 6 baa lay doortay ilaa maalinka maanta ah canshuur baan Jariiban baan canshuur ka bilownay wax magaca dawladda ugu soo galay waxaa jira Garowe anoo joogo siminaar ka qayb galay lacag 350
oo lacagtii siminaarka la bixinayo oo loo soo diray iyo qolo jariima soo degtay oo aan balbiso uga soo tegey oo inta u imid gaari baan watay shidaal baan ku shutay waxaan siiyey xafiistii shaqaalaan ugu diray $40 baan ku bixiyey markaan noqday aniga iyo ninkii la socdo siminaarna ay bixiyeen lacag $10 aan akoonkayga ku arkay oo liya siminaarkay ku bixiyeen qof gaar ima siin oo ma weydiisan babligan ima siin qabiil ima siin qurba joogna ima siin kumana qaadan ayaguna waa ila mid lacagtaa hadda 2 bilood shaqaalaha jooga waxaan u qoray lacag gunno ah dad hadda badan oo qaadna volunteer yahay qaarna shaqaale yahay baan degmada hadda ka hawlgala waxaan wiigii hore u diray Garowe 25 qof oo magaalada Jariima gudaheeda oo dawladda hoos shaqaalaheeda dadka gunnada aan u qoray xogayuu kuma jiro xogayuuna waa lacagta timbarahan ku dhuftay aniga asaga saxiixooda gudoomiye wuxuu ku jira annaga kuma jiro marka waxaan rabnaa si inaan annaga noogu fududayn inaan noqono dad tuuga ah dad laaluush qaata qofku hadduu baahan yahay qasab waxaa ku ah in uu wax cuno qofku sideedda diinta islaamku ay ka hadasho ee sakada la siiyo shaqaalaha qofka ka mid ah xaq bay u leeyihiin waxaa marka la rabaa annaga jeebkiina lacag qasaan degmadu kuwa kacayso canshuurta meel aad ka timaadeenba in canshuurta la bixiyo si aan idinku shaqeyno si baahida bulshada ay leedahay looga shaqeeyo in aad nala qaadataan qodobkaas waa waajib laakiin waxaan rabnaa in shacab ahaanna aan isku ogaano oo sida wax walbaaba si aan conflict inoogu hirgalaan inoogu hirgasho annagana aad nala xisaabtantaan oo canshuurtiinnii meesha aan geennay aad ogaataan kicinta canshuuraha dawliga okay in la soo dhiso guddiga khilaafaadka oo qodobka ugu dambeeyey qodobbada marka waxaan rabnaa inaad nala qaadataan